bishii sagaalaad 29 ayaan kulay jeel galay maantana waa taariikhda garan kartaa wiilkaygii maanta isagoo maxay caloosha ku jira maanta muddo karway waa xafid quraan ilaahay baa mahadaale alxamdulillah macallimiinta iyo dadkii ku tabcay insha Allah waan mahad celinaya dhammaan dhalinyarta soo dhaweysana waan mahad celinaya dhammaan cidii ka qayb qaadatay hawlahan waan mahad celinaya insha Allah taala waxa karoon mahad gaar ah u celinaya suldaanka suldaan baade وحقيقة إيجا هذا وعي مدوين كده مباردا حتى هيرو قاري waxa laga yaabaa in dadka badanay dad badanayna ogeeyeen ila siiraaya oo madax ka dhunkaday ila siiraaya madax ka dhunkaday war ninka uu si maalin boorma wafti ku yimiday way dhaceen adigu intii ilaahay qadaray qadarkum ba kulay aan aaminsanahay waxaan leeyahay insha Allah ta'ala war umada waxa weeyaan daanu maanta nin inta dhalinyarta maanta soo dhaweysay nin iyo laban garanaya nin iyo labo yaan garanaya wax laga yaabo waxaan inay kuwi barka dhashay ahaayeen dhamaantoodba marka daanu maanta odaybaan hay dadka wanaagooga iyo horumarkooga iyo maxay ahaydey inaan maxayda ka shaqeyno saasaanan iskoogna insha Allah ta'ala war xumata shiilka iyo maxay ahaydey waxyaabi barambugaadkiina iska dhamaaday insha Allah ta'ala inagana waxaan ilaahay waad mahadsantiin waraxbaynu taaganahay aniguna kulay xaalad caafimaad baan ku jiraayo hadalku dhibayo waxa weeyaan inta wax ka badan ma oran karo laakiin insha Allah ta'ala waan mahadnaqaya cid walbana waan mahadnaqaya hawshada ka qayb qaatay waxa karoon halkan fariin gaar ah u marinaya madaxweynaha oo leeyahay madaxweyne waad mahadsantahay talaabada aad qaaday waa talaabo fiican laakiin madaxweyne farxadda noo dhameystir anigu inamo xamar ka yimiday oo lagula jiray xalay wallahi waan seexan weynay oo saddex ahaa oo maxay ahayd waliba aniga iga xarig horeeyay oo dhalinyaro iyaga oo la soo xirxiray way naga xareeyeen marka maanta murugadaasna way taabanaysaa go'aanka aad qaadatay madaxweyne aad anaga ma naga qaadatay iyagana ka qaado waana mahadsantiin dhamaantiin cidii hawsheeda ka qayb gasho dhan waan mahad celinaya assalaamu calaykum